haddii qandhadii ku dhacdo ee qandhadii soo haleesho oo isla markaas laga qaban waayo waxaa imaan karo wax la yidhahdo febrile seizure ama qandho jarees wadato. Waxaa loo baahan yahay cunuga in wax walbo oo saaran dushiisa hadday naqa lahayd go' busto waxaasoo dhan in laga qaado, in lasoo qaado mara yar in la quuyo, madaxa laga saaro ama korkiisa qaybihiisa kale inta kale laga saaro, ama in loo qabeeyo. Sidoo kale waxaa loo baahan yahay cunuga in la siiyo qandho-jibiyaal sida shuruubooyinka qandho-jibiyaasha ibuprofen, paracetamol, waxyaabahaas oo kale. Waxaa loo sii baahnaanaa in la ogaado qandhadan waxyaabihii sababay, ma sabtiga, ma pneumonia, ma meningitis, ma annada waxyaabo kalea in la ogaado. Laakiin muhiimaddu waxay tahay haddii cunugii febrile seizure aad ku aragto inaad u samayso waxyaabaha horta ku saaran marooyinka faraha badan ee hooyooyinka ay ku daboolaan ilmaha inay ka qaadaan, meel qabowna la jiifiyo, mara qoyan la soo qaado la saaro ama lagu kubakubeeyo ama loo soo qubeeyo si qandhada uga jirto, kadibna la raadiyo waxyaabihii sababa qandhada. Haddii aad cunugaaga ku aragto shuban, sii mooska cagaaran ee ha siinin mooska jaallaha ah. Bismillah, magacaygu waa Dr. Cabdullaahi Cali Siyaad, ahna dhakhtar ku takhasusay cudurrada ku dhaca carruurta iyo daaweyntooda. Sidaa ognahay, mooska cagaaran waxa uu faa'iido aad u ballaaran u leeyahay caloosha iyo mindhiciraha, sababtoo ah waxa ku jirto ama uu ka kooban yahay ama ku jirto maaddo la yidhaahdo resistant starch, taasoo qayb weyn ka qaadato caafimaadka mindhiciraha iyo caloosha, awoodna u yeelan karto in shubankii la joojiyo ama shubankii sidaas uu ku istaago. Halka mooska jaallaha ah asagana sokortii ku jirtay loo bedelayo glucose iyo fructose, dhibaato iyo dhaawacna u gaarsiin karto calooshii ama mindhicirihii haddii uu qabo cunugii bakteeriyadii ama gaas calooleedkii ama gastroenteritis-kii. Sidaa daraaddeed waxaa aad u wanaagsan inaad siiso cunugaaga mooska cagaaran si loo yareeyo shubankii, caafimaadkiisana kor loogu qaado caloosha iyo mindhicirihii. Haddii aad ku aragto cunugaaga ama ilmaha yaryar lagu arko shuban, maxaa loo baahan yahay ama maxaa iga caawin karo inaan u sameeyo ama in loo sameeyo loo baahan yahay? Waxa ugu horreeya horta ugu wanaagsan in loo sameeyo waxay tahay naasnuujinta cunuga in loo sameeyo ama naasnuujinta in loo kordhiyo. Carruurta waaweyn ayagana waxaa loo samayn karaa in la siiyo barodhagtyadan sida karootada in loo balangareeyo ama loo habeeyo, bataatiga, bariiska, baastada iyo green banaanaska oo kale. Sidoo kale waxaa aad u wanaagsan in laga fogeeyo ama aan la siinin waxyaabaha ay ku badan yihiin milk lactose oo kale. Waxaa ka mid ah cabitaanada casiirka, cabitaanada sokorta leh iyo cunooyinka dufanka leh iyo waxyaabaha la isku yidhaahdo junky foodka ah uma wanaagsan in la siiyo. Waxaa aad u wanaagsan in laga fogeeyo. Wabillahi tawfiiq, assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Haddii aad ku aragto cunugaaga ama ilmaha yaryar lagu arko shuban, maxaa loo baahan yahay ama maxaa iga caawin karo inaan u sameeyo ama in loo sameeyo loo baahan yahay? Waxa ugu horreeya horta ugu wanaagsan in loo sameeyo waxay tahay naasnuujinta cunuga in loo sameeyo ama naasnuujinta in loo kordhiyo. Carruurta waaweyn ayagana waxaa loo samayn karaa in la siiyo barodhagtyadan sida karootada in loo balangareeyo ama loo habeeyo, bataatiga, bariiska, baastada iyo green banaanaska oo kale. Sidoo kale waxaa aad u wanaagsan in laga fogeeyo ama aan la siinin waxyaabaha ay ku badan yihiin milk lactose oo kale. Waxaa ka mid ah cabitaanada casiirka, cabitaanada sokorta leh iyo cunooyinka dufanka leh iyo waxyaabaha la isku yidhaahdo junky foodka ah uma wanaagsan in la siiyo. Waxaa aad u wanaagsan in laga fogeeyo. Wabillahi tawfiiq, assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Haddii aad ku aragto cunugaaga ama ilmaha yaryar lagu arko shuban, maxaa loo baahan yahay ama maxaa iga caawin karo inaan u sameeyo ama in loo sameeyo loo baahan yahay? Waxa ugu horreeya horta ugu wanaagsan in loo sameeyo waxay tahay naasnuujinta cunuga in loo sameeyo ama naasnuujinta in loo kordhiyo. Carruurta waaweyn ayagana waxaa loo samayn karaa in la siiyo barodhagtyadan sida karootada in loo balangareeyo ama loo habeeyo, bataatiga, bariiska, baastada
iyo green bananas oo kale. Sidoo kale waxaa aad u wanaagsan in laga fogeeyo ama aan la siinin waxyaabaha ay ku badan yihiin milk lactose oo kale. waxaa ka mid ah cabitaanada casiirka, cabitaanada sokorta leh, iyo cunooyinka dufanka leh, iyo waxyaabaha la isku yiraahdo junk foodka ah. uma wanaagsan in la siiyo, waxaa aad wanaagsan in laga fogeeyo. wabillahi tawfiiq, assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. waxyaabaha ugu badan ee sababi kara ilmaha inay ku dhacdo burkiito ama pneumonia. magacii waa Dr. Cabdullaahi Cali Said, ana dhakhtar ku takhasusay cudurrada ku dhaca carruurta iyo daaweyntooda. horta pneumoniada ama burkiitada waa infection ku dhaca neef mareenka ama sambabka. waxyaabaha sababi kara waxaa ugu muhiimsan 3 shay ayaa ugu muhiimsan. 3daa shay waxaa ka mid ah bacteria inay sababto, fungal inuu sababo, virus inuu sababo. haddaba cunuga markay intaas ku dhaca maxaa lagu arki karaa marka? cunuga waxaa lagu arki karaa cunugii inuu yeesho fiiraqaad, inuu yeesho qufac fara badan, inuu yeesho neefti, inuu boobsiiyo, qandho iyo dhaxan ama jarays inuu keeno. sidaa daraaddeed waxaa aad wanaagsan marka, waxaa laga yaabaa cunuga neeftiisa inay dhacsan tahay, uuba kaaga baahnayn waxyaabo kale ama antibiotic ama dexamethasonadaan iyo meelaha ay Soomaalida aaminsan yihiin. ugu baahan yahay keliya bas cunuga in la siiyo nebulizer oo keliya, si caburkii ama conjunctionkii ama neeftii dhacsan kor loogu soo qaado. haddaba waa maxay cudurkan ilmaha madaxa kaga dhaco ama inta badan madaxa ka saameeyo? bismillah, magacaygu waa Dr. Cabdullaahi Cali Said, ana dhakhtar ku takhasusay cudurrada ku dhaca carruurta iyo daaweyntooda. inta badan cudurkan ilmaha madaxa kaga dhaco waxaa la yidhahdaa tinea carpidis ama tinea carbitis, hadba qofkas u yaqaano. inta badan wuxuu saameeyaa ama uu ku dhacaa scalvo, qaybta koroo lafta madaxa ah, iyo wuxuu kaloo gaaraa eyelashishka iyo eyebrowga. waxaanu aad kugu badan yahay oo ku dhaca cudurkan ilmaha jira 3 sano ilaa 14 sano. waxaana sababa bacteria dermatophyte microsporic kerophyton wax la yiraahdo. ilmaha inta badan u nugul oo cudurkan ku dhici karo waxaa ka mid ah ilmaha qabo excessive sweetnesska, ilmaha qabaan ama ilmaha mar walba dhidido. sidoo kale iyo ilmaha mar walba isla isticmaalo waxyaabahan shallooyinka, burushka timaha lagu shalaysto, waxyaabahaas oo kale ayagana u nugul yihiin cudurkan inuu ku dhaco. sidoo kale wuxuu aad ugu nugul yahay tropical environment, ilmaha ku nool oo kale sidoo kale aad ayay ugu nugul yihiin. sidoo kale ilmaha waxyaabaha qalabka sportska ama waxyaabahaas oo kale isla isticmaalo, sidoo kale cudurkan inuu ku dhaco ayagana aad ayuu ugu nugul yahay. inta badan cudurkan waa la daaweyn karaa, daawadiisana aad ay u fududahay ayadoo loo maraayo daawadii loogu talagalay in la siiyo canuga, waana wax la daaweyn karo misana la baabin karo. wabillahi tawfiiq, wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu. magacii waa Dr. Cabdullaahi Cali Said, ana dhakhtar ku takhasusay cudurrada ku dhaca carruurta iyo daaweyntooda. waxaan rabaa maanta faa'iidada uu u leeyahay cabitaanada loo shiido ee la siiyo, khaasatan cabitaanka looska ah ilmaha yararka ah. faa'iido uu leeyahay, faa'iido koobaad uu leeyahay waxaa ka mid ah kor u qaadida maskaxda, 2 caafimaadka wadnaha, 3 kor u qaadida miisaanka ilmaha, 5 hagaajinta dheefshiidka, 6 xoojinta lafaha, iyo halka ugu dambeeyo ah in cunugii bararkii uu ka baabi'iyo. haddaba waa laga yaabaa ilmaha qaar inuu allergy ku yahay ama dhibaato u keeno, laakiin faa'iidooyinkaas aad ku fara badan waxa uu leeyahay carruurta yararka ah waa markii cabitaan ahaan looga dhigo oo loo shiido. sidaa daraaddeed waxaa aad wanaagsan hooyo walbo ama waalid walba inuu ku dadaalo inuu siiyo cabitaanka